ودورشدي Somaliland magaalada Hargeysa ayaynu joognaa waxa hadda socota codeyntii goobtan hadda aynu joognaa waa madxafkii qaranka oo laga codeynayo sidoo kalena dadyow aad iyo aad u tiro badan ayaa halkan isugu yimid si ay codkooda u dhiibtaan sanadkan doorashadu waa doorasho saaran waa laba doorasho tii madaxtinimada iyo tii ururada 10 urur ayaa tartamaya saddexdii xisbi qaran waxay isku bedeleen saddex urur dad kala duwan oo aad iyo aad u tiro badan ayaa halkan ka codeynaya qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa codkooda dhiibanaya waayeel dhalinyaro dumar haween dhammaan dadkan oo dhanna waxay u codeynayaan si ay u muujiyaan muwaadinimadooda qof kastana waxa uu codeynaya cidda uu rabo goobtani waa khayriyadii soo kalena iyadana waxa yaala in ka badan 5 qaybood oo ah qaybaha laga codeynayo ka waran doorashada maanta si nabadgelyo ayaa loo codeynaya doorashada kadib mustaqbalka Somaliland maxaad u rajaynaysaa dadka mustaqbalka fiican aad u wanaagsan ay waxyaabaha soo martay kaga soo kabatay insha Allah u rajaynaa subaxii hore saaka dad fara badan ayaa halkan joogay ma waxaad kamid ahayd dadyowgii halkan yimid ee salaadii subaxeen ku tagay salaad wala ka codiyay ha bulshada qaybaha kala duwan waayeel dhalinyaro haween intooda joogaan wayna codeynayaan goobtan waa goobta ugu kayuuga badan magaalada Hargeysa waxay isku dhow qaybaha waxa weeye laga codeynayo qayb madxafka qayb khayriyada iskuulka Sheekh Bashiir sidoo kale garoonka Timacadde ilaa laga gaadhay guriga shaqaalaha waana goobaha suuqa inta badan dadka marka hore ay iska diiwaangeliyeen sidoo kale halkan waxaa ka hadlaya bulshada qaybaha kala duwan oo lagu wareysanayo iyo qaybo ka mid ah hawlwadeennada xisbiyada qaranka qof kasta isagoo miirkiisa iyo maamkiisa iyo maskaxdiisa qabada wuxuu dooranayaa hogaamiyaha uu isleeyahay Somaliland maanta isaba dabci karaya xisbiga uu isleeyahay dooro ama ururka isleeyahay doorana listigaas uu go'an yahay oo qaabkaas uu codeynaya reer Somaliland waxay halkan ku soo gaadheen dadka niyadooda aad iyo aad ay u faraxsan tahay si wanaagsan ay codkooda u dhiibanayaan iyagoo ku faraxsan qarannimada iyo midnimada dalkan sidoo kale halkan dadyo kala duwan ayaa iyaguna warbixin kooban bixinaya gudoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna halkan waxa weeyaan gudoomiye Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga weyn aanu musharax saddexaad ee u tartamaya isaguna halkan ayaa uu ka jeedinayaa warbixin kooban oo ku saabsan arrinta doorashada Government
goobtaan joognaa oo goobtii khayryada. goobtan waa goobta taandhooyinka laga codeynaya ay joogaan shaqaalaha loogu talagalay inay hawsha wadaan. si wanaagsan ayaa ku socdaa barnaamijka codeynta ee magaalada Hargeysa iyo dhammaan si guud dalka Soomaaliland. saaka subaxii hore murashax Cabdiraxmaan Ciro iyo madaxweynaha waxay ka codeeyeen guriga shaqaalaha iyaga oo sidoo kale la hadlay bulshada qaybaheeda kala duwan, fariinna u mariyay in si nabadgelyo doorashada ay u codeeyaan bulshadu. dadku iyagoo faraxsan ayaa ay dhiibanayaan codkooda. weli Faysal Cali Waraabe iyo bulsho badan ayaa halkan isku wareysanaysa. warbaahin qaybaheeda kala duwan ayaa halkan iyaguna maraya. sidoo kale guddi heer caalamiya ayaa iyaguna joog ah si ay u eegaan habka quruxda badan leh ee ay u socoto doorashadan. ما شاء الله الحمد لله سنة بدأ وسعتها حسلوني ركبوا تيو فرحتها كم نقطة هذه هذا ومستوى شعورتي وموتشني أول فرحتي. والله المحاضرة كينة دورشة كده إن شاء الله قولي وقولي وريتيني يسوع مالنا اعتراف كأشياء صدق نقدر ترتمي ننكي هلا بهذين إن شاء الله تعالى قول بان ريتيني سمعنا ولو ريتيني يا شعب كله. aad baad mahadsantahay. halkan waxaa ku sugan dadyo kala doonaya codka dhiibanaya. weli gudoomiye Faysal Cali Waraabe ahna gudoomiyaha UCID murashax madaxweyne ayaa weli goobtan ku sugan oo bulshada la hadlaya. halkan ay ku suganayna waa khayryadii.